wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo bariyihii u dambeeyay safar ku marayay qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada gobolka Sanaag ee Cerigabo waxaana halkaas wafdiga wasiirka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Cerigabo madax dhaqameed iyo qaar ka mid ah beeralayda gobolka Sanaag ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay isduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Sanaag Maxamuud Yuusuf Tagal halka waxa inoogu yimi wafdi uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda horumarinta beeraha ee qaranka waxaan ku leenahay wasiir halka waxa taagan dhammaan dadweynihii gobolka Sanaag oo isugu jira beeraleydii iyo madaxdii gobolka waxaan ku leenahay way noo dambaynaysaa faahfaahinta iyo warkeenu si wanaagsan halka ugu soo dhawow si wanaagsanna waanu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay sida aad noo soo qaabishay adoo ay markii ugu horeysay baad sidoo kale waxa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalam Timbaro iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kale ee halkaas ku sugnaa wadana wasiir waxaan kugu soo dhaweynaa maanta aad si weerartaan kugu soo dhaweyno magaalada madaxda degmada Cerigabo gobolka Sanaag aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa niyad furan baan kugu soo dhaweynaa qalbi soo dhaw dalkaaga iyo degmadaada iyo dadkaagaba wasiirka wasaaradda beeraha horumarinta beeraha Axmed Muumin Seed oo maanta halkan u taaganahay soo dhaweyntiisii waxaan leenahay wasiir soo dhawow ku soo dhawow gobolka Sanaag ku soo dhawow degmada Cerigabo ku soo dhawow magaaladaadii iyadoo shacabka wasiir Maxamed Muumin Seed waxaan leenahay wasiir gobolka Sanaag waa gobol khayraad badan oo gobolada beerahana in laga maalgeliyo culays la saaro u baahan ku soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan wasiiradii u horeeyay gobolka soo booqday ihtimaamka soo siiyana waa tahay waxaanu ku leenahay soo dhawow wasiir ku soo dhawow gobolkaagii shacab iyo maamulba waxaanu kugu taagneen halkan inaad gobolkan Sanaag waa gobolka ugu ballaaran horta gobolada Somaliland waa gobolkii wanka galay berigii wada weel banka sartankii beeraha loogu jiray waa gobolkii wanka galay waxaanu u baahanahay maadaama aanu islaanahay inaanu xagga qacantiina wanka ka galno insha Allah wasiir waa gobol qudrad aad u badan baa ka baxda mushkilada haysatay laakiin wadaan bay lahayd alxamdulillah waa tan wadada inoo furantay dhawaan tareelayada noohan ka soo raro basal iyo baradha waxa ku arki doontaan halkaysa insha Allah khayr baan idin rajaynaynaa waxaan ku leenahay wasiir ku soo dhawow in gabagabadina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo ka mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa salka ku hayo socodkaygu ilaa shalay ilaa intii in badan baan soo soconay waxaan u soconaana waxa weeye inaan ogaano xaaladda guud ee beeralayda ee gobolka Sanaag inaan ogaado oo ku horgalo waqti badan baynu wada joogaynaa waxaynu ku horgalaynaa oo aan u socdaa waxa weeye inaan ogaado beeralayda xaaladda ay ku jirto si aan aniguna wixii awoodayda dawlad ahaan iyaga wasaaradda ahaan baan u qabanno marka dib waynu is wareysanaynaa waynu wada joogaynaa wixii tala midaysan baynu ku wada dhaqaaqi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan soo dhaweynta hal la yareeyo wax qabadka hal la badiyo laakiin waa gobolkii ugu horeeyay aad la igu soo dhaweeyay gobolkana aad baan isku garanaynaayo anoo xisbiyada qaranka ka mid ah uma niman jiray oo markii horeysay anoo wasiiraan imaado waxaan jecelahay kulley deeman midna waxaan waan sidaa Barkhadle Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Cerigabo